Okay, kusoo dhawaada subax wanaagsan. Halkan waxaan ku qaadanaynaa casharadii noo bilowday Excelka basicgiisii ugu horeeyay. Maanta intaanaan sameynaynaa. Marka intaan aan sameynayno bal jooji akhri fiiri intaanaan nala rabaa intaan inaan sameyn karno aan nala rabaa maanta levelkeena. Marka ugu horeyn waxaan nala rabaa inaan furno Excel introductions fileka ama workbook inta tagayna horta kana xireyna waa kana marka aragtaa Excel introduction okay waa double click gareynayna okay waa noo furmay okay marka waxaan la yiri waxa u bixisaan magaca instruction fileka tagaysa then save as leedahay halkaana marka waxaan bixinaynaa waxaana la yiri waxa ku save gareysaan desktopka marka intaan browse gareynayna desktopka waa kana desktopkan tagnay waana save gareynayna okay waxaana la marka xir workbook xirana kan kii aan save gareynay instruction ku bixina waa kana asagana la rabaa inaan furno kii hore waa kana wada marka asagaan furayna waxaana la yiri waxa highlight gareysaan cell A1 cell walba horta address uu leeyahay cell addresska aad maqlaysid cellka markaad taabatid addresskiisa ama cell referencegiisa halkaas kusoo baxaya name boxka hadda waxaan joognaa B4 waxaana la dhahay marka waxaad tagtaan cell A1 laba mid baa ku tagi karnaa halkan waan fiirin karnaa rowga columnka iyo rowga meesha iska jiraan addresska waa kaas ama waxaad samayn kartaa markii lagu diro cell waxaad dhihi kartaa A1 aa leedahay meeshii highlight garooda waa kaas A1 usoo qoray marka waxaan halka rabaa A1 inaan ku sameyno marka yellow fill inaan sameyno color gareyno yellow okay waa sameyn tag cell kan numberkiisu san yahay sida idin sheegay halkaanaan ku qori karnaa cell name boxkaas cellkaanu na geenayaa laakiin maadaama aan ogahay cellkan inuu yahay row inuu ku jiro rowga ugu dambeeyo ugu hooseeyo ugu dambeeyaba workbooka waxaan isticmaali karaa control iyo waxaan isla qabanayaa arrow down waa tagaya waxaan ku qoraynaa naliyo ku qora last row okay and to go back hadana control iyo home ka isla qabanaysaa waa kusoo noqonay meeshan new sheet ku dar meeshaan sheetka looga daraa markuu sheetkan wax ku qabsatid sheet kale u baahatid ama ba sheetka information ku qoran yahay iyo sheetka kale information ku qoran yahay arabtid inaad kala socdid halkaan uga daraysaa new sheet okay new sheet waxaana la yiri u bixiya blank so blank u bixinayna enter okay ugu dambeyntii marka waa save gareynayna wixii aan sameyno dhan intii aan hadda qabano dhan aan save gareynayna control s hadda taabatid waa save gareynaysaa ama halkaas aad tagtid wada meeshaas hadda control s oo ku soo qormatay ama long way hadda rabtid fileka tagtid aad save gareysid laba inta baa sameyn kartaa laakiin more productive hadda rabtid inaad ku noqotid excelka waxaa fiican inaad isticmaali kartid keyboardka inaad wax walba taa ka sameyn kartid wax yarna kan aad ku qaban kartid waxaa noqonaysaa markaas more maaragtay productive wax badan quickly navigationkaaga wax walbeeto waa fududaanayaan sababta dhan oo Excel loo sameeyna waxa waaye waa book marka ay wax dhan workbook electronic book waaye oo badanaaba aad ku sameysanaysid waxyaalo badan marka haddii aad navigationkiisa iyo sida u save gareysan lahayd iyo basic koobaad markaa baranaysid maaragtay aad baratid waxyaalo badan ku sahlanaanaya ugu dambeyntii marka waxaan la dhahay xir workbooka saa idin sheegay halkaasaa laga xiraa casharkeena intaasaan kusoo gabagabaynaynaa kheyr aan isku ognahay intii insha allah laga gaaraya casharka dambena nabadgelyo